195 waddan ee dunida ku yaala daryeelka caafimaad ee ka jira hal dawlad oo kaliya ayaa ka liidata Soomaaliya. tusmo 2019kii ay soo saartay jaamacadda Johns Hopkins kaalinta 194 ayay Soomaaliya kaga jirtaa. dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxay ka qabatay caafimaadka dalka? miisaaniyadda dawladda 3 sano ee la soo dhaafayay waa ay kordhaysay. waxaana wasaaradda maaliyadda ay sheegtay in dakhliga soo xarooda iyo canshuurtuba ay kordhayeen. balse daryeelka caafimaadka ee dalka marnaba muusan kordhin. 9 hosbitaal ee dawladda hoostaga 3 waxa ay bulshada u shaqaynayeen inta badan xilligii burburka, waana Madiina, Banaadir iyo Keesanay. 6 soo hartayna waxaa la furay xilligii dawladdii madaxweyne Xasan Sheekh, walow 2 ka mid ah hadda ay xiran yihiin. sanadka 2014 mashruuca ugu weyn ee dawladda ay ku faani doonto federaalka waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu noqdo mashruuca adeegga caafimaadka asaasiga ee bulshada Soomaaliyeed la gaarsiin doono insha Allah. munaasabad xariga looga jiriyay isbitaalka Martiin xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhagax dhigay. xasan Sheekh Maxamuud ayaa xariga ka jiray isbitaalkii weynaa ee caanka ah ee Digfeer. qorshe adeegga caafimaad ah oo la sameeyay 2013 marihii ka dhashay waxa ugu dambeeyay hosbitaalka hadda lagu dabiibayo dadka qaba xanuunka COVID-19 ee Martiini, kaasoo madaxweyne Xasan Sheekh uu dib u furay December 2013 heshiis dhex maray dawladda federaalka iyo Turkiga ayaa waxaa dib u dhis lagu sameeyay hosbitaalka Digfeer oo xariga laga jaray January 2015. hosbitaalka xoogga waxaa la furay November 2014. abriil 2015 boqortooyada Bahrain ayaa dawladda ku wareejisay isbitaal weyn oo qaabilsan xanuunada indhaha. hosbitaalka Sheikh Sayid waxaa la yagleelay 7 January 2015 laakiin waxa uu xirmay 2018. 3 June 2016 waxaa isku maalin Muqdisho laga furay dhismaha cusub ee safaaradda Turkiga iyo isbitaalka Yedimile. intaa waxaa soo raacaa dhismaha wasaaradda caafimaadka iyo kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda ummadda. inaan soo noolayno kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Xasan Sheekh cilado kale oo uu leeyahay ayaa jira, balse xaqiiqaha iyo taariikhda ayaa qiraya in uu muhiimad weyn siiyay horumarinta caafimaadka dalka iyo dib u dhiska isbitaalada burburay. isbitaalada dawladdiisu hirgelisay waxaa ka saameyn badan sariiraha ay geysay Martiini Hospital dawladda hadda jirta. sababtuna wax kale maahane waxaa kala duwan sida loogu sheegay shacab. dawladda hadda jirta oo kaga xariifsan tii ka horreysay qaabka isticmaalka warbaahinta, mararka qaar waxa ay faafiyaan macluumaad xaqiiqda ka fog si ku talagal ah, iyadoo ujeedku yahay saamaynta ra'yiga guud ee bulshada. la yaab ma lahan buunbuuninta iyo marin-habaabinta waa qayb ka mid ah ciyaarta siyaasadda. 2.5 milyan oo ku nool Muqdisho waxaa ka dhaxeeya wax ka yar 100 sariirood oo weliba hal isbitaal ku yaal. dawladdu maxay ku dooratay in coronavirus lagula tacaalo isbitaalka Martiini oo kaliya? magaalada Muqdisho waxaa ku yaala in ka badan 20 hosbitaal. qaar ka mid ah isbitaaladan waxay leeyihiin qalabka ku dhex dhisan oo dhammaan sariiraha gaarsiiya adeegga oksijiin iyo qaybo lagula tacaalo dadka gala xaaladaha daran ICU. ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo ka walaacsan faafidda cudurka COVID-19 ayaa warqad ay u qoreen madaxweyne Farmaajo kaga codsaday in 4 hosbitaal dadka lagula tacaalo, iyagoo ballan qaaday in ay si isxilqaan ah ugu shaqayn doonaan. taladooda lama qaadan, cudurkan aad ayuu u faafayaa. baaritaanada COVID-19 ee laga sameeyay Soomaaliya haddii qiyaas laga qaato dadka aad buu ugu faafay cudurkan, inkastoo xogaha rasmiga ah la aruuriyay ay kooban yihiin. wasaaradda caafimaadka waxay joojisay baahinta tirada dadka la baaro, waxa kaliya oo ay soo gudbiso ayaa ah inta laga helo. labadii maalmood oo ay baahisay 72 qofood oo la baaray, 55 ayaa laga helay, taas oo ka dhigan 76% in dadka la baaraa ay qabaan cudurka. 722 qof ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhacay coronavirus, balse tirada dhabta ah ee qabta cudurkan intaa wax u dhow maaha marka loo eego faafidda fayraskan iyo xogaha la xiriira ee dunida aruurisay. qofka qaba waxa uu qaadsiiyaa 2 ilaa 3 qof, kuwaasoo iyagana in la egsii gaarsiiya. sidaas ayuuna kumanaan ku gaaraa cudurkani. gabagabadii dawladda madaxweyne Farmaajo oo ay u hartay 280 maalmood wax ka yar, waxyaabo badan oo u qabsoomay way jiraan, balse waxa ay ka gaabisay daryeelka caafimaadka ee dalka.